caasimada gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 4 cisho ah Boorama uga socday gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan ee gobolada Somaliland iyo howlwadeenada maxkamadahaasi waxaana tababarkan lagu baranaya hagaajinta adeega maxkamadaha wareega iyo nidaamka galdacwadeedka maxkamadaha ee degmooyinka iyo gobolada Somaliland waxaana tababarkan maanta soo xiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Mudane Yuusuf Ismaaciil waxa uuna ka waramay muhiimadda uu tababarkan u leeyahay gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan ee gobolada Somaliland iyo howlwadeenadii ka qayb galay waxa uuna yiri kula saabsanaa labada mawduuc cadaalad ee maxkamadaha guud oo looga dan leeyahay in dadka loo dhaweeyo cadaaladda iyo dhaqangelinta nidaamka maareynta galdacwadeedka case management waxaan ku raacsanahay 10 qodob ee aad halkan ku soo xusteen ee aad isla qaadateen wala ilaahay mahdi waxa aan ku dari lahaa hal qodob oo aan xasuusinayo oo muhiim u ah marka la joogo ee habka maareynta galdacwadeedka tacbaynu sameynaa adeeg garsoor baynu fulinaa waxa loo baahan yahay si ay dadku kalsooni ugu qabaan in ay dib ugu soo noqono nidaamkii hore u jiri jiray xeerar kala ku qoran habka madaniga dacwadaha Abdi Jaamac oo ku hadlayay afka ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa waxa uu sheegay inay wax badan ka faa'iideysteen tababarkan muddada 4 cisho Boorama uga socday waxa uuna sheegay inay ku dhaqmi doonaan waxyaabihii ay ka faa'iideysteen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal oo goobjoog ka ah xiritaankii tababarkan ayaa waxa uu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarkan inay wixii ay ka barteen ugu faa'iideeyaan bulshada iyo bahda cadaaladda عبد الفتاح أحمد هاد وناج نيوز مقالة بورما